mataqaanaa qaabka ugu wanaagsan ee ugu fiican ee loogu saliyo nebigeena suuban salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh. waxaan ku bari doonaa qaabka salaada markii lagu jiro loogu saliyo nebiga sallallahu calayhi wasallam, iyo marka caadiga magaca nebiga agtaada lagu sheego ama aad rabto inaad nebiga ku saliso qaabka ugu wanaagsan aad ugu salin karto. waxaan kaa codsanayaa inaad walaalahaaga kala gaarsiiso siday ooga faa'iidaystaan. dad badan oona ka warqabin ama qaab kale oogu saliyo inay ka warqabaan haddeer ay ka faa'iidaystaana laga yaabaa. ilaahay ha ku xifdiyo. marka salaada lagu jiro qaabka ugu wanaagsan ee nebiga loogu saliyo waxay tahay: allaahumma salli calaa muxammadin wa calaa aali muxammed kamaa sallayta calaa ibraahiima wa calaa aali ibraahiim, wabaarik calaa muxammadin wa calaa aali muxammed kamaa baarakta calaa ibraahiim wa calaa aali ibraahiima fi lcaalamiina innaka xamiidun majiid. taasi waa markii salaada lagu jiro. marka caadiga nebiga inaad ku salis aad rabto qaabkay oogu salinaysaa waa qaab badan ayaa jirto. midda ugu fiican laakiin waxay tahay: allaahumma salli calaa muxammed wa calaa aali muxammed sala allahu calayhi wasallam. markii nebiga agtaada loogu sheegay inaad dhahdo allaahumma salli calayh, inaad dhahdo salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh, inaad dhahdo allaahumma salli wasallim calaa nabiyina muxammed. intaasuba way habboon tahay in la dhaho. midda ugu fiican waxay tahay: allaahumma salli calaa muxammed wa calaa aali muxammed.